wafdi ka socda jaamacadda carabta ayaa maanta dalka si weyn lagu soo dhaweeyay iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ee garoonka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ay ku soo dhaweeyeen wafdigaasi isla markaasina wafdigaasi waxa ay kulan albaabadu u xidhan yihiin kula yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo mas'uuliyiin kale xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wafdigaasi ayaa markii ay soo gaadheen garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport magaalada Hargeysa waxa ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kuwaasi oo soo galbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo kulan albaabadu u xidhan yihiin ay kula yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland علي شراء kadib kulankaasi waxa ay wafdigaasi kulan ballaaran oo dhinacyo badan taabanaya la qaateen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kaasi oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha gabagabadii kulankaasi waxa hadallo kala duwan u jeediyay warbaahinta nuxurka kulankaasi ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saad Cali Shire sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Cali Salaan Jirde iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa maanta halkan inala jooga ونوgu yimi wafdi afar qof ah oo ka socda jaamacadda carabta oo hogaaminayo ergeyga gaarka ee xoghayaha jaamacadda waxay noogu yimaadeen socdaal xog ururina iyo xog ogaala waxa anigu waan la kulmay halkana maanta waxa kula kulmay wasaaradda fara badan gidigeeba waxaan u soo bandhignay oo aan u sheegnay baahiyaha waddanka xagga ka haysta xagga biyaha xagga cuntada caafimaadka waxbarashada abaaraha way qaateen insha Allah bidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa socdaalkan inuu noqdo kii ugu horeeyay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid midho dhala muddo fara badan ayaynu sugaynay in ay wafuudi nooga timaado iyo mataqaana gargaarba nooga yimaadaan jaamacadda carabta maanta muddo bilow inuu noo yahay aad baan u soo dhaweynaa ku faraxsan laakiin noo yimaadeen insha Allah bidnillaahi kariim kan wuxuu noo noqon doonaa bilow wanaagsan anigu wuxuu arintaydu ay focus gareynaysaa ama ay diiradda ku haysay waxa xagga horumarinta wixii siyaasadda Saacadiya tiimkiisa wasaaradda khaarijiga ayaan u dhaafnay markaa concept notes badan waan u dhiibnay national development plan keenina shantii sanadood ka dhamaadka ku jiran waan u dhiibnay oo sanadkan oo kaliya inooga baahan yahay 190 milyan oo dollar in lagu maalgeliyo kaas oo aanu nidhi inuu u bandhigo jaamacadda carabta si ay wax uga geysanayso canaanna uma yareysano de waadikii maqlayay idinku goobjoog ah ka inaan canaantii ay lahaayeen siinay wax kale naga ma hayn canaantu waxay inay dhexdhexaad ka noqdaan qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay yihiin dad muslim oo carabna aan wadanay iyadoo ay noognahay intii horena inaan wadamada Carabeed wax tar badan inaga inoo lahayn marka bal waxaan rajaynaynaa in intii dambe ay safiirka inkan ambassadorka inoo yimid warka uu qaaday ay bal wax ku qabsadaan